anigoo maxamed cabdi xayir maareeye ataqaaniin laba xil ayaan dalkan ka hayaa dabcan waxaan ahay wasiirka beeraha iyo waraabka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo kalena waxaan ahay xildhibaan qaran oo lagu soo doortay magaalada Muqdisho maanta magaca xildhibaanka ayaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan fariin ugu diro wax badan ka dhihi maayo horumarka dalka iyo dawladnimada Soomaaliyeed sameynayso oo sidaad ogtihiin horumar weyn ayaa jira dalku dhaqaale ahaan wuu soo korayaa amnigu wuu xoogaysanayaa dalka oo dhan gaar ahaan magaalada Muqdisho aad markhaati ka tihiin sida ay isu bedeshay amnigeedu ciidamada qaranka ayaa ka adkaaday al-shabaab oo baacsanaya oo diyaarada helay oo rajo laga qabaa inay soo afjaraan argagixisada dhinaca kale dawladdu adeegyo ay ka mid yihiin kuwa beeraha xoolaha ayay gaadhsiinaysaa gobollada iyo degmooyinka dalka iyadoo kaashanaysa dabcan maamul goboleedyada qaarkood horumarkaas weyn ayaa jira waxaanan ka tegaynin in subcadda dawladda ee dhinaca caalamku ay aad u xoogaysatay oo hal tusaale haddaan idiin soo qaado aad ogtihiin in Soomaaliya ay hadda fadhido golaha amniga golaha Security Council la dhaho oo codka Soomaalida dawladdu ku tartamayaan oo baryayaan iyo meelo kale oo badan deyntii leena ka cafiyay wax badan oo horumar ah ayaa dalka ka socda dhinaca kale haddaan fiiriyo dabcan shacabka Soomaaliyeed weli wuxuu badankiisu ku jiraa fakhri iyo gaajo weli dawladdu sidii la rabay ee dawladaha kale dadkooda ugu adeegaan uma wada gaadhin dhawaanna waxaad arkayseen in magaalada Muqdisho ay odayaal xilal hore soo qabtay fadhiyeen oo mucaarid abaabulayeen mucaaridaan dhihi karo mucaarid hubaysan oo ficilkii ugu dambeeyay saldhigga degmada Wardhiigley ka dhacay uu markhaati u yahay inay yihiin mucaarid hubaysan oo la rabo inay noqdaan mucaarid salmiya oo aan hubaysnayn si dalku hore ugu socdo marka xildhibaan ahaan siyaasi oday ah oo muddo badan soo shaqeeyay waxaan isweydiiyey